Soomaaliya ayaa safiir u magacaawday Mareykanka kadib 3 cisho aflagaadadii madaxweyne Trump u geystay Soomaaliya. 3 maalin ka hor madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa erayo cunsurnimo ay ku jirto ku weeraray 4 dumar ah oo ka tirsan Koongareeska dalka Mareykanka oo ay ku jirto Ilhaan Cumar. Qoyska madaxweyne Trump ayaa la sheegay in ay yihiin soo galooti, waxaana la sheegay in xaaska madaxweyne Trump ee Melania Trump ay dhalashada waddankaasi qaadatay 6 bilood kadib markii senator Ilhaan Cumar oo Soomaali ah ay markaas qaadatay. Warkan ka soo yeeray Donald Trump ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay siyaasiyiin badan oo dalka Mareykanka ka soo jeeda iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ay ka mid tahay afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga ah. Trump ayaa haweenka ay ku jirto Ilhaan Cumar ku tilmaamay inay ka soo jeedo wadamo burbursan oo uu qalalaase ka jiro, waxaana ugu baaqay inay wadamadooda u laabtaan. Ilhaan Cumar oo gelinkii dambe ee maanta ku soo jawaabtay barteeda Twitter-ka ayaa eedan culus u jeedisay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyada oo sheegtay in ay u wada dhaarteen sidii ay ula dagaalami lahaayeen madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan ee abid soo maray Mareykanka. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaan ka jawaabin hadalkii madaxweyne Trump ee uu ku sheegay in Soomaaliya ay tahay meel ay dawladi ka jirin oo ah wadan burbursan oo uu qalalaase ka jiro, waxaana taas ay muujinaysaa habacsanaan iyo ujeelacsanaan dowladda Soomaaliya ay u jeelacsan tahay Mareykanka. Wadamo burbursan ayuu sheegay in ay Soomaaliya ka mid tahay madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Dowladda Soomaaliya ayaana habeenkii xalay ahaa magacaawday Ambassador Cali Shariif Axmed in uu noqdo safiirka Soomaaliya u fadhin doona Washington. Ambassadorka la magacaabay ee Cali Shariif Axmed ayaana horay safiir uga soo noqday wadamo ay ka mid yihiin Faransiiska iyo sidoo kale dalka Ethiopia. lama garanayo wax xilligan ku soo beegay in dowladda Soomaaliya magacaawdo safiirkan xilli la ogsoon yahay maalmo ka hor markii madaxweynaha Mareykanka uu gafay qadiyada jiritaanka Soomaaliya oo uu ku sheegay inay tahay wadan burbursan.